madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo magaalada Juba ee xarunta koonfurta Suudaan way qayb galay munaasabadii lagu dabaaldegay heshiiskii dawladda iyo mucaaradka koonfurta Suudaan ayaa xalay la kulmay jaaliyadda Soomaalida ee ku nool magaalada Juba oo ah dad u badan ganacsato ayaa muujiyay sida ay u garab taagan yihiin dawladooda iyagoo ku bogaadiyay hoggaanka sare ee dalka sida ay uga go'an tahay in Soomaaliya isku tashato aniga markaan matal yar seego waxa tahay al-izza fi shacbi Soomaali qofka Soomaaliga wuxuu arkaa inuu izza fi ku arkaa qof kasta Soomaali ah maanta wuxuu ka arkaa xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay tahay xukuumad al-izz sharafkii iyo haybadiina soo celisay Soomaaliya qof kasta wuxuu dareemayaa meel kasta uu joogo Soomaali ah inuu maanta maqaamkii Soomaaliyeed uu dib u soo laabtay kalsoonidii isku qabay uu dib u soo laabtay uu hadli karo oo sheegi karo waxa uu rabo taasi waxa sabab u ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumaddiisa dhalinyarada u badan ee runtii hore loo sheegay mudana madaxweyne farxadda iyo shukrinaqa aan ku hayno way badan tahay haddaan ay soo socdaan dalabkaygana waa la sheegay waxaan aad iyo aad kaaga codsanaynaa inaad maaragtay dadka meeshan jooga waa dad wadanka wax ku tarawaya waa dadka horumarka wadanka ka shaqeeyayaan waa dadka dhaqaalaha iyo horumarka ku bixinaya waxay u baahan yihiin waa in la helaa xukuumad Soomaaliyeed oo garab taagan xuquuqdooda ilaalinaysa maalkooda ilaalinaysa waqtiga ku bixinaysa intaasaan ka codsanaa maxadan Soomaali laba cudur dilay waxa weeye qabayl iyo goboleys wax la yiraahdo waxa farxad iyo ajaal madaxweyne inaan meeshan kaaga cadeeyo adiga wasiiradaadaba dadka reer Saudi waa ka caafimaad qabaan waxaas boqolkiiba 200 ka caafimaad qabaan waxaan adiga hortaada rabnaa inaan ka dhirno inaan u mahad celino shacabweynaha reer Suudaan iyo madaxweynahooda iyo madaxdoodaba sidii ay noo soo dhaweeyeen sidii ay noo siiyeen sharciyada sidii ay shaqada noogu ogolaadeen inaan u mahad celino runahantii waxaan oran karaa maanta xafladii nabadda inaad ka soo qayb gashay waqtina gelisay adiga iyo madaxdaaduba yani annaga reer Suudaan ahaan waxay noo tahay sharaf aad u weyn madaxweynaha dalka ayaa ku tilmaamay wax lagu farxo in jaaliyadda Soomaalida ee ku nool koonfurta Suudaan ay yihiin dad dalka ay joogaan saameyn wanaagsan ku leh isagoo ugu baaqay inay kaalin ku yeeshaan dib u dhiska dalkooda oo hadda uu ka socdo ololaha isxilqaan oo ah mid loogu talagalay in Soomaaliya ay ka maaranto in gacmo shisheeye wax ka sugto runtii aad iyo aad waxaan aad ugu faraxsanahay in magac fiican aad ummadda Soomaaliyeed xaqiiqatan u soo hoyseen oo laga aaminsan yahay dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad aan caadi ahayn oo xaqiiqatan aad u shaqeysta weliba dhanka businesska xirfadeeda aad ugu horeeya waa wax runtii lagu faano waxa ceeb ah haddii la yiraahdo dadka Soomaalida ah waa tuugsadaan ama waa tuugo laakiin haddii la leeyahay dadka Soomaaliyeed waxay ku tartamaan dhaqaalaha iyo shaqada wax ka fiican oo laga sheegi karo maba jirtaba marka aad iyo aad ka mahadcelinayaa waxaan u baahanahay dowladnimada inaan dhisano oo aad gacan ka geysataan oo qof walba oo Soomaaliyeed aan farayno aan leenahay ka qayb gal dib u dhiska dib u xoreynta iyo dib u soo celinta dhaqaalaha dalkaaga qayb ka qaada isxilqaan waxa qayb ka ah in dadka aan u sheegno Soomaalida waxay ahaan jireen madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa mar uu ka hadlayay hannaanka federaalka ee Soomaaliya waxa uu ka hadlay habka uu kala qeexayo waajibaadka shaqo ee dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah waxaan qaadanay siyaasadda federaalka qaadanay oo aan ku shaqeynaa laakiin waxa jira waxyaabo loo baahan yahay in la cadeeyo dawladda federaalka ah waxay leedahay door wax qabad shaqay leedahay oo dastuurku uu cadeynayo maamul goboleedyaduna waxay leeyihiin shaqo degmooyinka ka hooseeya iyaga shaqooyin ay leeyihiin shaqooyinkaasna wax isku khaldamaya ma aha xitaa
haddii qofka danleyda siyaasadeed uu rabo inuu isku khaldo waxaa la rabaa majority-ga dadka in ay qabtaan oo yidhaahdaan waxaan waa dastuur laakiin caqliga suubanna wuxuu sheegayaa in la helo dowlad dhexe oo xoog leh waana federaalka saasa federaalku wuxuu yahay waa dowladda dhexaa xoog leh xoogna waxay ku leedahay waxaa hoos taga oo ay maamushaa arrimaha ciidanka qalabka sida iyo difaaca dalka waxay maamushaa siyaasadda dhaqaalaha waxay maamushaa siyaasadda arrimaha dibadda waxay maamushaa siyaasadda immigrationka iyo xuduudada haddaad maqashaan dowlad awooddeedu waaba intaasba dowlad goboleedyada waxaa u soo haray in adeegii ay gaarsiiyaan hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay inay dadkooda mas-uulka ka yihiin ay ka warqabaan hadday tahay ceelal inay u sameeyaan iyo canshuuraha inay aruuriyaan oo qaybna ay ku leedahay dowladda dhexe dhinaca kale madaxweyne farmaajo ayaa kahor inta uusan ka soo ambabixin magaalada Jubba waxa xarunta madaxtooyada dalkaas uu kula kulmay dhigiisa dalkaas Salva Kiir oo ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo sidii loo sii adkeyn lahaa iyo sidoo kale wasiirada arrimaha dibadda iyo ganacsiga labada dal ay kulankaas qayb ka ahaayeen